السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوضايال meel walba oo joogtaanba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamida dawladda federaalka Itoobiya ayaa duqeymihii ugu cuslaa waxay ka wada magaalooyinka kala ah Kabo iyo Lalabela oo ka wada tirsan dawladda deegaanka Axmarada. sidoo kale maalinimadii shalay ahayd dawladda federaalka Itoobiya ayaa tababar waxay u soo xidhay 200 oo askari oo saraakiil xigeen ah oo la rabo inay ka qayb qaataan dagaalka weyn ee lagula jiro kooxda TPLF ay dawladda federaalka u maran laadahay. sidoo kale jamhadda xoreynta Oromiya ayaa maalinimadii shalay ahayd waxay tababar u soo xidhay 14,000 oo askari oo u tababaran sida ciidamada militariga oo markii ugu horeysay ay tahay jamhaddu ay ciidamo xadka leh ay tababar ugu soo xidhay gudaha Itoobiya. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamida deegaanka Soomaalida magaalada lagu magacaabo Tuluguleed waxaa soo weeraray jamhadda Oromiya ee duleedka magaalada Faafan ku taala halkaas oo la soo sheegay inuu khasaare ba'an ka dhashay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan. taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 27 bisha 9 2021 haddaynu u guda galo wararkeeni oo faahfaahsan. dawladda federaalka Itoobiya ayaa duqeymihii ugu cuslaa waxay ka wada magaalooyinka kala ah Kabo iyo Lalabela oo ka wada tirsan deegaanka Axmarada. magaalooyinka duqeymaha culus ay ka socdaan ayaa waxay yihiin magaalooyinkii maalmihii ugu dambeysay ee kooxda TPLF ku habsatay. kooxda TPLF ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay qabsatay magaalooyinkaasi waa magaalooyinka kala ah Kabo iyo Lalabela oo ka wada tirsan deegaanka Axmarada. meel muhiim ah kaga yaala deegaanka Axmarada oo ah magaalooyin istiraatiiji ah. halka ayaa la soo sheegay inay dawladda federaalka Itoobiya ay duqeymihii ugu cuslaa ka wado ayadoo la soo sheegay halkaas inay wax shacab ah ku noolaan shacabkiina dhammaan ay iskaga huleeleen. dagaalada xooggan ee ka socda deegaanka Axmarada ayaa maalinba maalinka ka dambaysa kor u sii kacaya ayadoo kooxda TPLF-na isku sii ballaarinaysa dhul ballaaran oo ka tirsan deegaanka Axmarada. deegaanka Axmarada ayaa waxa uu noqday hoyga dagaalada ee dalka Itoobiya ayadoo dawladda federaalka Itoobiyana maalinba maalinka ka dambaysa u soo daabulaysa ciidankii ugu cuslaa oo hubka noocyadiisa kala duwan ku garaacaysa dhulka ay TPLF ku sugan tahay. hase yeeshee kooxdan TPLF ee loo maaran layahay ayaa iyadu waxay isticmaalaysaa istiraatiijiyada dagaalada ayadoo la soo sheegay markasta inay guulo ballaaran ka gaarayso dagaalka. maxaa yeelay TPLF waxaa la soo sheegayaa inay hogaaminayaan saraakiishii hore ee ciidamada federaalka Itoobiya oo khibradda dagaalka aad u lahaa ayadoo TPLF ka faa'iideysanaysa maskaxda saraakiishaasi ayay maalinba maalinka ka dambaysa isku sii ballaarinaysaa dhul ballaaran oo ka tirsan deegaanka Axmarada. qoomiyadda Axmarada ah oo qoomiyadda labaad ee ugu badan dalka Itoobiya ayaa waxaad moodaa dagaalka TPLF inay u maaran laadahay ayadoo la soo sheegay maalinba ka dambaysa inay qoomiyadda Axmaradu aad u kululaatay. madaxweynaha maamulka Axmarada ayaa waxa uu sheegay haday shacabka Axmaradu iska difaaci waayaan TPLF ama ay la dagaalami waayaan qoomiyadda Tigrayga inay ceeb ku tahay ayagoo uu sheegay inay tahay jaaniska ugu dambeeyay ee Axmaradu heshay. madaxweynaha Axmarada ayaa waxa uu sheegay inay la gudboon tahay inay dhalinyarada Axmaradu hubka qaataan iskana dhiciyaan Tigrayga maadaama Tigraygu dagaal qoomi ah ku soo qaadeen qoomiyadda Axmarada. qoomiyadda Axmaradana tahay maamulihii Itoobiya ama madaxii Itoobiya ugu sareeyay. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay haday dhalinyarada Axmaradu dagaalkan ay gali waayaan inay maalinaan maanta in ay farta dhaxda ka qaniini doonaan jaaniska soo marayna uu waligood soo mari doonin. hase yeeshee qoomiyadaha kale dalka Itoobiya oo ugu horeysay qoomiyadda Oromada ee ugu tirada badan dalka Itoobiya ayaa la sheegayaa inay ka soo horjeedaan siyaasadda Dr. Abiy Ahmed uu ku hagaya dalka. qoomiyadda Axmarada ayaa iyadu gabi ahaanba waxay ka soo horjeedaa federalismka sida la sheegayo federaalka oo dawladda Itoobiya ay in badan ku soo canamashay ayadoo federalismka hadda dalka Itoobiya ka jiro la sheegayo inay kooxda TPLF ay hormuud u ahayd.
hase yeeshee qoomiyadda Axmaarada oo ah qoomiyadda qadiimiga dalka Itoobiya isku wada in ayadu hayso ayaa sheegaysa federalismka ay TPLF keeneen inuu yahay kala geynta dalka Itoobiya. sidoo kale qoomiyadda Oromada ee ka soo jeeda ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa gabi ahaanba waxay qaadacsan siyaasadda Dr. Abiy Ahmed uu ku maamulayo dalka Itoobiya oo madaxdii ugu sareysay qoomiyadda Oromadu ay xabsiga ugu jiraan Dr. Abiy Ahmed. sidoo kale Jawhar Maxamed oo ahaa hogaankii isbedelka uu ku yimid Dr. Abiy Ahmed hogaaminayay ama dhalinyaradii qeyr qoomiyadda Oromada ayaa xabsiga ugu jira Dr. Abiy Ahmed. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah 200 oo sargaal ay dawladda federaalka Itoobiya maalinimadii shalay ay tababar u soo xidhay ayadoo dawladda federaalka sheegayso inay saraakiishaas noqon doonaan saraakiisha hogaamin doona dagaalka lagula jiro TPLF ay dawladda federaalka u maraan leedahay. dawladda federaalka Itoobiya ayaa ugu yaraan hal sano dagaal waxay kula jirtaa kooxda TPLF ayadoo wax guul ah wali laga gaarin dagaalka lagula jiro TPLF. sidoo kale dawladda federaalka ayaa la sheegayaa inay nooca ay u dhaqmayaan saraakiisha ugu sareysa kooxda TPLF. sidoo kale dawladdu waxay ku eedeysay kooxda TPLF inay xasuuq baan ka geysteen deegaanka Axmaarada. sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxay dhalishantahay saraakiisha ciidanka federaalka ugu sareysa maadaama dagaalka soo afjari laayiin TPLF-na ay ka guuleysan laayihiin. dawladda ayaa waxay ku tuumaysaa saraakiil dawladda federaalka ka tirsan in ay la shaqeynayaan ciidamada TPLF oo markastana ciidamada federaalka fashilinayaan xalku kolba meeshu marayaan ay TPLF u gudbinayaan. hase yeeshee saraakiishan cusub ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli uu dalka Itoobiya dagaalkii ugu xumaa marayo ayadoo meelaha lagu dagaalamayana ay yihiin gobolka Axmaarada. saraakiishan cusub ayaa la filayaa inay maalmahan howlgallada bilaabaan dagaalka jidda hore dagaalkana ay tagaan dagaalada ka socda gobolka Axmaaradana ay xal u helaan. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah jamhadda Oromiya xoreynta Oromiya ee loo yaqaan Ola ayaa dagaaladii ugu xoogana waxay ka wadaa gobolka Oromiya ayadoo maalinimadii shalay ay tababar u soo xidhay ugu yaraan 14,000 oo askari oo lagu sheegay inay yihiin ciidamada xoreynta Oromiya. dagaalada xoogan ee ka socda gobolka Oromada ee u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo jamhadda xoreynta Oromiya ee ku magac dheer Ola ayaa maalinka ka dambaysa ka sii daraya. jamhadda ayaa waxay sheegtay inay tahay markii ugu horeysay ciidan cadad leh tababar loogu soo xidhay gobolka Oromiya. sidoo kale jamhaddu waxay sheegtay inay ciidamadani sida ugu dhaqsaha badan u bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah dawladda federaalka Itoobiya. qoomiyadda Oromada ee ku dulunsan gudaha Itoobiyana inay xaqooda u soo dhicinayaan. sidoo kale jamhaddan Oromiya oo ah jamhad qadiimi ah ayaa bariyahan dambe awoodo dheeraad ah la soo baxday ayadoo la soo sheegayo inay jamhaddu ka batalisay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Oromada. qodobkeena ugu dambeeya wararkeena waxaa kamid ah degmada Tuli Guuleed ee ka tirsan gobolka Faafan ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa maalinimadii shalay dagaal xoogan waxay ku soo qaaday ciidamo ka tirsan qoomiyadda Oromada. markii ugu horeysay maaha ciidamo Oromada ka socda ay dagaal ku soo qaadaan duleedka magaalada Jigjiga ee ku taala magaalada Tuli Guuleed. hase yeeshee sanadyadii ugu dambeeyay Oromada dagaalka xagga Soomaalida ka dhaxeeya waxaad moodaysaa in laga nastay. maalinimadii shalay ciidamada dagaalka soo qaaday ayaa la sheegay in wax khasaaro weyn ka dhaleen hase yeeshee ay halka ka geysteen boob ay u geysteen hanti dadweyne. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.